munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo lagu daafurayay librariga casriga ah ee loogu magacdaray Berbera Public Library ayaa ka qabsoontay hoolka kamid ah hoolasha ka dhisan goobtaasi waxaana ka soo qayb galay xafladan xarig ka jarka ahayd wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID maamulka gobolka Saaxil mas'uuliyiinta degmada Berbera aqoon-yahanka kala duwan ee dalka hal-abuurka ka caanka ah deegaanada kala duwan ee lagaga hadlo afka Soomaaliga dhalinyaro haween madax dhaqameedka ka soo jeeda gobolka Saaxil iyo guud ahaan dalka ugu horeyna waxa halkaasi hadal ka soo jeediyay xildhibaan Bareed kana warbixiyay habka iyo hilinka loo maray kamira dhalinta hindisahani sidoo kale waxa halkaasi hadal ka soo jeediyay gudoomiyaasha jaamacadaha Nugaal Burco iyo jaamacadda barashada culumta badda ee Berbera abwaanada Xasan Ganay iyo Aadan Tarabi Cabdishakuur in cashuurta laga keeno baddu ay ka badan tahay cashuurta laga keeno bariga oo ay sidaa ugu suura gashay librarigan inay dhisaan isaga iyo tiimkiisu iyo inuu ka daacadsan yahay golayaasha deegaanka ee anaga nala jooga ee yimaada aqoonta qofka bini'aadamka inta ku jirta aqoonta keenta horumarka ummaduna horumarkeedu wuxuu ku xidheeyay inta ay wax akhrido adduunkana waxa lagu kala horumaraa caqliga bini'aadamka iyo abuuritaanka bini'aadamku waa isku wada mid inta caqliga gasha iyo inta laga faa'iideeyo waxa se galab taala in la dhowro wax lagu soo kordhiyo mooyee wax laga dhibo inaan la xirin waayo waxa la dhigaba haddii aan la ilaalin oo aan la asturin oo la hagaajin oo la daryeelin oo qof waliba buuga birta la keeno saadama uu qaato amba uu jeexjeexo inoo hagaagi maayo dhismahan maayarkan ka soo shaqeeyay inuu guri maanta sidaa loogu aayo oo fayuusharka loogu aayo inuu Berbera ka hirgeliyo aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa waana ku salaamay intaasi kadib waxaa iyaguna hadalka isu daba maray xogayaha fulinta dowladda hoose ee Berbera maayarka magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin gudoomiyaha gobolka Saaxil Injineer Axmed Cismaan Xasan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Injineer Faysal Cali Xuseen waxaana yiraahdeen ayaanu imika xoog gacanta u haynaa waxbarashada iyo caafimaadka jaaniskaas wuxuu ka soo baxay baahi ay arkeen golaha deegaanku markay arkeen baahiyaha ugu badan iyadoo ay jaamacadda qure golis markaa ay golaha deegaanka la doortay ay ahayd ardaydii ugu horeysay oo tiro yar ahayd ku qalin jabisay waxaa noo soo baxday inay taallo baahi aqooneed maanta golaha deegaanka ee Berbera wuxuu ku faanayaa inuu sanad kasta hayo markay ugu yartay 200 oo arday oo jaamacadda dhigta haddii aan dadka deegaanka aan gobolkan u dhashay ama degmadan jooga aan la dhisin aqoontooda cilmiga diiniga iyo maadiga waxay noqonayaan kuwa dadka kale xamaal u noqdo may noqonayaan si taa looga baxo ayay culays u saareen haddaan u soo noqdo halkan waxaan runtii aan u mahad celinayaa oo aan sharafta iyo magacaba siinayaa dhalinyarta iskood isu abaabulay Berbera Readers Club oo iyagu shilimaadka iyagu markii hore ay soo ururiyeen waxay doonayeen inay maga nooga ahaayeen guriga dawladdu leedahay oo yar oo aad u yar oo ay doonayeen harka in lagaga saaro dadkii ku jiray sidaan dhaqan saga leenahay inagu guriga dawladdu qofka galuma inta badan iska haysto mushkilad bayna haystaa halkaasaynu maanta maraynaa horeeyeen shirkadihii iyaguna ka qayb qaatay ee Dahabshiil iyo Telesom ay ka mid ahayn iyo kuwa kale oo aanan hadda xasuusnayn cid kasta oo maskaxiyan wax ugu qabatay cid kasta oo ficiliyan wax ku qabatay cid kasta oo fikir lahayd dhamaantood aad iyo aad ay ugu mahadsan kii shanaashada ma keen waa qaran NFD waa qaran ee hoonka bay naga qabsanna Soomaaliya shan wadan noqoto halkiina jooga keeskoodana faylka inaga soo qaadayna insha Allah taala inaga dawlad wanaagsan oo waxuun cunayna shay ku shaqaysanayna u dhisi doona laakiin waxa weeye ka inagu xuma waa ka gudaheena waxa weeye kay wuxuu waa ka qabyaalada wada waxa inaga xoog weyn qabyaaladii oo diintii ka xoog weyn oo qarankii ka xoog weyn waa inaynu la dagaalanaa qabyaalada waxaana ku ilisay
caalamka hogaaminaysid runtii waxaan ugu dambayntii mar labaad u mahad celinayaa runtii madxafka cusub ee loo dhisayo waxaanan ka codsan lahaa aqoon-yahaan jaamac muuse jaamac inuu bal ingiriiska isaga iyo madaxda kale dhamiba iyo faysal cali waraabeba ay inoo baadhaan librariyadii ingiriiska oo ay ka soo saaraan taariikhdii somalilan oo ka buuxa taariikhda somalilan halkaasi ka buuxda oo halkaynu ku biirino wixii ka dambeeyey waxaa kaloo jira warqaddii u qoray ducamadii amba yani madaxdii reer berbera ee somalilan dalka ahayd warqaddii ay qoreen 1837 ay u qoreen dalka iyo istaga imaaraadka. intaasi kadib waxaa abaalmarino la guddoonsiiyey xubno ka mid ah dadkii muruqa maanka iyo maskaxdaba geliyey Berbera Public Library. sidoo kale waxaa maamulka goobtaasi loo sameeyey ay la wareegeen kitaab iyo buugaag aad u tiro badan. waa Cabdirashiid Mubaarak Cabdi Cabdirashiid Suul Telefishinka Caalamiga Soomaali Cable.